wallahi waxay imaan doonta kuwa jeebeysan iyagoo la isku xidhan oo soo jeebeysan in si toos ah afnugan media laga daawado taana idin balan qaadaya. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waan salaamay dhamaantiin meel kasta aad joogtaan soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan dhamaantiin waxaan rajeynayaa inaad nabad qabtaan dabcan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir page-ka wakaalada wararka afnugan media sidoo kale like saar haddii ay baqadarka leeyahay si toosana ugu xidhnaa page-kan dhanka kale madani official youtube-ka channel-kan ku leenahay madani official ayaa si toosa nooga daawan kartaan si live ah waqtigan haddeer oo si live ugu jiro barnaamijka waxaa caawis oo idin daadihinay anigoo wariye cabaas madani dabcan waxaan rajeynayaa inaad kaga bogataan warbixintan wararkii ugu dambeeyay ee ninka ganacsadaha ee loo afduubay afhayeenkii beelaha daarood cabdikariin cali nuur oo muddooyinka ugu dambeeyay ku xidhnaa magaalada berbera ninkaas oo xalay la afduubtay halka uu hadda ku sugan yahay qaabka loo afduubay waxaan rajeynayaa insha Allah taala muuqaalkan inaad sii shargareysaan haddii rabbi idmo dhawaan waxaad la socoteen magaalada laascaanood waxaa lagu xidhay afhayeenkii beelaha daarood cabdikariin cali nuur isagoo markaasi loo qaaday magaalada berbera afhayeenka ayaa la geeyey magaalooyin dhowra sida magaalada burco berbera hargeysa iyo mandheera halkaas oo dhammaan la wada geeyey xabsiyada halkaasi ku yaala ugu dambeyn afhayeenka ayaa hadda ku xidhan magaalada berbera halkaasi oo markaasi ugu xidhan yahay maleeshiyaadka jabhadda ee sanab dad badan waxay isweydiinayeen afhayeenku waxa weeye maxaa looga jawaabi karaa maxaa looga jawaabaya afhayeenka waa la xidhay maxaase looga jawaabaya jawaabtu waxay noqotay meel walba in bulshadu ay kacdoon ka samayso ay ka kacdo iyadoo af iyo adinba labadaba lagu fiirinayo afka waynu soo aragnayo haddii alla kuuraya banaanbaxyaa dhacay shacabku si nabad ay u hadleen ganacsatadu si nabad lay u hadleen dal iyo dibadba waa laga hadlay ninkaasi asanabay ma sii haysan kartaane sii daaya layidhi war ka daaye waa ka diin waaye maxaa dhashay hadda xalay afhayeenku inuu tol leeyahay ayaa xalay la tusay afhayeenku inuu laandheere yahay ayaa xalay la tusay afhayeenka inaan la haysan karin ayaa xalay la tusay afhayeenku inuu dad iyo dal iyo gobollo iyo qabiil laandheera inuu ka dhashay ayaa xalay la tusay esan waxaa dhacday ciidamada xaqudurka SSC oo gudanaya waajibaadkooda waxay xalay jidka u galeen gaari markaasi basa gaarigaasi oo saarnaa nin ganacsado weyn ah oo reer burca isla markaasna ay walaalayihiin nin sarkaal ah oo ka tirsan saraakiisha maleeshiyaadka jabhadda isaan ninkaasi gacanta ayay ku dhigeen gaarigana waa kala degeen goobtii ay ugu talagaleenna waa geysteen afduub ahaan ayay u qabsadeen haddii alla kuuro yahay situationku dee maasha allah waxa weeye haddii alla kuuro yahay intii kale rakaabka ahaana waa la fasaxay Soomaali Maxamed ahaa isaga un baa lagala degay istiraatiijiyad iyo wax laga shaqeeyay ayay ahayd ujeedada loo xidhana waxay ahayd ninka xaqdarrada ku xidhan ee afhayeenkan walaalse la doonayay ka badan in la qabto hase haddee ninkaas ilaahay gacanta ciidamada xoogga wadaniinta SSC geliyay haddaba maxaa dhacay kolkii la qabtay wakaalada warka baahaysay waxa weye dhawqu meel dheer ayuu gaadhay alay sheegayaa ninkii markii goobtii la geeyey horta dee waxa weeye wuxuu ka wareegay haddii ay baqadarka leeyahay shuban buu ku waashay haddii alla kuu leeyahay hor iyo daba noqdo naxdinta uu nahay dee nimanka qabtay maxay ahayd laa ilaaha alxamdu rasuulillah nimanka qabtay niman lugta ilaa madaxa wada masqara xidhan oo haddii alla kuu leeyahay siday u hubaysan yihiin iyo siday u diyaar garaysan yihiin la ogyahay meesha la geeyana ay tahay aakhiro warkaas waxa weeye calaa kulli xaal waxaa leeyahay ninkaasi hor iyo daba ayuu noqday dee waa nin waxa weye haddii baqdar gacanta lagu dhigay waxa hawshaasi ka yeersiinaysana cabsi iyo baqitaan uu ka baqay
runtaa loo sheegay. waxaa lagu waxba adiga ku diri mayno, waxaanu kuu xiranay waxa weeye oo aanu kuu haysano waa ku ognahay waa ku naqaanaa. waa ninka afhayeenka xiran, ninka afhayeenka xiran cabdikariin cali nuur baa jawi noqonaysaa. haddii berbera haddii alla kuuraya lagu xanuujiyeen adigana waa lagu xanuujin. haddii loo yara wanaagsiyo oo sidii nin mas-uul odaynimo loola dhaqmayna adigana si mas-uuliyad leh ayaa lagula dhaqmay, maadaama aad tahay maxbuus u xiran ciidamada xaqdararka ACC. ciidamadaas oo aan qabiil lahayn ee ahaa ciidamadii deegaankan uu lahaa ee reer ACC. xalay waxaa la ii sheegay ninkaasi indhaysuma keenin, taleefanadu meel walba waa gaadhay, wadada Burco ilaa Garowe la yiraahdo waa istaagtay. gawaaridii iskaga gooshi jiray Burco iyo Garowena waxa weeye waa istaageen. dadiyowgii isu kala gooshi jiray socdaalkoodii hadda waa istaagay. hawshina waxay noqotay haddii alla kuurayaana waa laga afduubtay, adiguna inta kula joogto afduubo. ilaa xalay warkaasi markuu soo baxay waxa weeye haddii alla taleefanadu ma istaagin. qolihii SNM cabaadka ka baxay oo yaabaysaa. waxa weeye haddii alla kuuri kuwii laascaanood joogay saaka iyo magaaladii ka baxaan oo dhammaan waa dareereen. wax gaadiid oo maanta magaalooyinka u kala gooshayna ma jirto, waa istaagtay. halkaa markaa u shumarayso oo ay ballantu tahay in video ay soo duubaan nimankaasi waxa weeye haddii alla ku iyaga joobe ninkaasi isagoo jeebeysan oo haddii alla ku yahay ciidamada xaqdararka gacantooda ku jira ayaa ninka wuxuu gaadhay xaaladiisa serious. xaaladii ugu xumed u gaadhay waa indhuhu biliqbiliqasi. ujeedada ninka loo qabtayna maaha in la dilo ama la dhaawaco. haddii la rabo in la dilo isagoo aan lasoo afduubinba bartu taagnaaba waxa weye si toosa looga xajo qaadan karay. laakiin ujeedadu waxa weeye inta uu xiran yahay afhayeenku in isagana nin loo hayo. anaa kulli xaal ninkaasi xaalad serious ayuu noqday. waxaa jirtay in nimankii afhayeenka haystay ay soo hadleen, odayaal soo dirsadeen, odayaashii deegaanka iyo odayaashii laba qabiil loo wada hadlay, isaaq iyo dhulbaante in loo wada hadlay. haddii alla kuuray la isla afkartay in loo turo maatada iyo shacabka magaalooyinka iskaga gooshaya. arrintan way ka balaaranaysaa. waxaana halkaasi lagu kala saxaxday in afhayeenkii maalmaha soo socda la sii daayo. ninkan sakaraadka indhaha biliqbiliq ka siin indhaha biliqbiliq ka siinayna waxa weeye haddii alla kuuriyo la sii daayo oo waxa weeye haddii baqadarka leeyahay faraha laga qaado. oo wadadaas wada waxa weeye waa seylad weeye, seylad meel xirmaysa maaha, meel kacaysana maaha. nin la afduubto leey si adag baa loo wada hadlay. ciidamadii xaqdararka ahaa waa laga furfuri kari waayey. runtii ergooyinkii u tagay rasaas xun bay ku fureen, waana loo geli kari waayey. markii dambe rag waaweyn baa ka shaqeeyey heshiiska kumeel gaarka ahaa ee ah in ninka haddeen indhaha biliqbiliq ka siinaya ee hor iyo daba noqday ee haddii alla kuuran yahay ay sii daayaan. afhayeenkana mudday qabsadeen, muddada in lagu sii daayo. muddadaasoo ka bilaabanaysa maanta oo haddii alla kuuran axada, muddadaasoo ku eeg haddii alla kuuran yahay 5 maalmood: axadda, isniinta, talaadada, arbacada, khamiista. ninkaasi jimcaha haddii uu banaanka ahaan waayo heshiiskaas waa burburaya. wadooyinka Burco iyo haddii alla kuuran yahay Garowena waa go-aysaa. saasa horta lagu heshiiyey. waxaa taleefanka ku jiray raggii ugu waaweynaa ee SNM ina kahan hogaaminayay, nuuxtaan hogaaminayay ayaa khata ku jiray. laba qabiil baa loo wada hadla. arrintu meel xun bay istaagtay. qolihii kale ee haddii la ku horgalada ahana wiliqda ka dhamaatay. oyagiina waxa weeye godkooda ayaa biyuhu weyn. على كل حال ninkaasi waxa weeye isagoo waxba la nooleen ayaa la sii daayay. anigu marka hore waxaan ku yiri war ninkaasi inaad waxa weeye hadii la ku yahay
aad dhagadiisaan oo suxun u kululeysaan oo isagoo indhaha bilaq khasiinaya aad muuqaalkiisa ummadda u bandhignayd hasi haatee waxa weeye waxaa la yidhi waxa weeye bal ha loo kaadiyo awoodoodan baa la tusay inaan wax sameyn karno inaan isbedel keeni karno inaan waxna dili karno waxna nooleyn karno waxna sii deyn karno ayaan tusno inaanu kan bari aan sii deynay saada manaan qabsan karno ayaa hadii la koriyay waxa weeye ayaan tusno waliba ninkan si gaar hadaan u sii sheego ninka reer SSC ba abtu u ah in abtu loo yahay ayuu laakiin lama kala jecla markii hore waa la ogaa markii la qabanayay min abtu loo aha waa la ogaa afayeenka hadii alla kuuriyo xaaladiisu hadda waa fiican tahay saacadihii la qabtay ninka maxbuuskana wixii ka dambeeyay si wanaagsan baa loola dhaqmeeyay waana la sii deynayaa sida heshiiska ku meel gaarka uu yahay weey maalinta khamiista wixii ka horeeyay hadii la sii deyn waayana hadda waxa weeye shaqada waajibaadka dadka saaran waa gudanayaan dadku waa la kala shaqsanayaan cid isu gudbasa magaalooyin la isugu gudbiyay ma jirto waxa weeye maxaabiist waxaana afduubkuna waa dhacay waana la kala afduubanaya iyaguna kuwa dhul baahantay Hargeysa Burco ha afduubtaan xare intay furtaan ha ku xareystaan waxa weeye dadku waa loo bareeray isu socodku inuu xirmo inaan la isu galin waa wax loo bareeray way waxaan wax ay asana ku shaqeyso way wax laga shaqeeyay way inuu tol leeyahay inuu gobol leeyahay inuu dad leeyahay ayaa la tusay xaaladda maanta gobolka Sool caawa ay kacsan tahay cabsi weyn baa jirta gaadiidkii habeenkii soconayay waa istaageen meel walbana waxaa jooga ciidamada xaq dararka magaalada gudaheeda ku jiraan ayday ku jiraan hadii alla ku meel aysan joogin ma jirto nin walbana meeshu joogana waa ku ogyihiin waa garanayaan meeshu joogo inaan la ogeyn habeeraati ma jirto afhayeenku hadii balanta ay qaadeen waxa la iskaadi badana waa loo godo badeeyay balanta ay qaadeen hadii ay ku sii deyn waayaan wallahi waxa imaan doonta kuwa jeebeysan iyo la isku xidhan oo soo jeebeysan in si toos ah social media laga daawado taana idin balan qaadeen balan weey taas balan ana tahay idin balan qaaday iyagoo waxa weeye hal sii daayo waa xidhanahay meelan joogna garan mayno way dhaas marka guuleystan la yadmaan waxaan kaloo runtii u mahadnaqay ciidamada xaq dararka SSC talaabooyinka guulaha ay qaadayaan waan dareemayaa warkaasi ah in ninkaasi ama indhaha bilbilaha ka siiya ama xaaras ku sii daaya ama horiyada waxa waxa la sheegay meeshu wadankiiba xarb ka dhigay leeyahay baqadin heerka gaar dadka noocaas ah dhulkii qeybo kamid ah jooga dadka nooca marka la qabto xaarka isku sii deynaya xaar baa laga sii deynaya ninka hadii la kuuriyo gurigiisa joogi waaye ninka gardarada joojin waaye ninka la abdiyay eelay wanagada warkada baan ku leenahay adeer xaar baa sheegaysa caloosha ku soconas markuu saa u fiiriyay baa leeyahay wax hadii qadar laga sheegan karaa sawt habna sawada haysto ilaa hoos ilaa lugtaas ilaa madaxaas inuu wada maskaraatu xidhan yahay oo aan si inaba caadi ah u tababaran oo dhulkiisa saa u fiiriyay mise wallahi billahi ta'ala waa akhru jooga ay hor iyo daba noqday baa leeyahay marka taasi waxa weeye iyadoo muuqaal ayaa la heli doonaa oo waxa weeye nagasti hadii afayeenka sida u dhaqsaha badan waxaana insha Allah ta'ala umada rabana u bandhigno inta afayeenka uu xabsiga ku jiro inaan live ka tagay inaan hadli doono inaan insha Allah ta'ala ka shaqeynano sababtii iyo waxa weeye sababtu ku soo bixi lahaa hadii la guriyana ka shaqeynano odayaasha mid baan leeyahay odayaasha waxaan leeyahay shalay markuu xidhnaa in la xidhayeen kamid hadlayn markii ma dheereeyay barbar la geeyeen kamid hadlayn maanta inaad ka hadashaan waa idin dulli xumo waa idin dadnim xumo wallahi dadka diin weydaan wallahi idinkana waa idinku daraya idinkana waa idinku daray dhul bahanta maanta waa dhaafay xilligu nin caaqil iyo nin imaamad sitay nin hadii la kuurayay asana ama laaluushaasiisa ama u hanqal taagaya xilligu taladiisa maqli lahaa waa dhaaftay taladii dhul bahante taladii SSC dhalinyarada gacanta u gashay
meeshaanu dhignay tagaysaa, meeshaanu dhigno ayay tegaysaa. afhayeenku sida muuqata anagu naga xidhay haddaanu nahay dhalinta dhulbahantee, haddaanu nahay inta aqliga u saaxiibka, haddaanu nahay inta damiirka dhulbahantanimo ama reer esasnimo uu ku jiro ayuu ku xidhay. laakiin inta dulliga ee damiirkoodu dhintay kama xidhna. annaga u dagaalamana haddii xabad noqoto iyo hadday dagaal noqotona cidda qoriga radee, cidda ku dhimatay, cidda ku baabaadan waa anaga wey. maantana haddii aanan shalay tala ku lahayn, maantana anaga taladeeda yeelanana, go-aankeedana yeelanana. ninkaasna wuxuu maanta nagaga baxsaday laba qodob. waa inuu abti loo yahay gobor reerka ay dhashay. waa midda labaadee nin gebigiisaba meed soconaya oo indhaha biliq ka siinaya. qorshooyinkaas qodobadaas waxawey keentay sababta waxawey iyo heshiiska la galay ee ah in ay nimankii sii daynayaan. waxaa anagu doonana waxaweye afhayeenka meeshii laga qabsaday lagu soo celiyo xorriyadiisa noqon si bilaash shuruuda, bilaash shuruud. ugu dambeyntii ragga dhulbahanta Hargeysa Burco jooga ee hergolada waxaan leeyahay nabadda Nugaal, nabadda Soomaaliya waxa gacanta ku haya weligeed qori wata ayada ku jira. waxa weeye nacablaynta iyo unaageynta asnam haddaad joojin weydaan wallaahi billaahi tula waxay tegi doontaa idinkoo carra la socdo maadaan oo ka baqay ama in laydi dilo ama in laydi afduubto. waayo waa dhito iyo dhibaataad ka shaqaysaan. waxay dhaheen in cali kooraha xidhay maxaa lagu xidhay? ninkii jira wuxuu yidhi haddii dhagax lagugu soo tuuro dhagaxii baad qabsanaysaa mise qofka kugu soo tuuray? dhagaxa maxaad ka qabsan? waaba lagugu soo tuuray, laakiin cidaad qabsanaysa waxa weeye qofkii kugu soo tuuray. horgolada dhulbahantee waa dhagaxna lagu soo tuuray. cidaanu la xisaabtanano aan la qabsanano, cidaan la xisaabtanano aan la xisaabtamano waa dadkii nagu soo tuuray ahmed sheedka jabada islam. aad iyo aad baa mahadsantiin. khayr iyo baraka idin rajeyna insha Allah taala. waa guulaysan heegan ba cid kasta dhulbahantaana heegan bay maanta ku jirtaa, heegan baan lagu jiraa insha Allah taala. saacadda waa tiriyana maalmaha 1 2 3 4 5 baan leenahay. aad iyo aad baa mahadsantiin.